الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كنا مانتا وحكوسا سنيهاي tense سجالات simple future tense. Simple future tense. And simple future tense is used for an action which will happen in the future time. And simple future tense وحلو استعمالها is used for حلو استعمالها an action فل which كاسو will happen لعدونه in the future time وقت كاسو صعدة فوق المستقبل كاه. قاعدتيسا waxaa waaye formula waa subject plus will or shall plus verb plus object. I, we, you, they, she, it, he, she. intaan oo dhan markii la joogo simple future tense waxay qaadan doonaan will ama shall. marka tusaalaha aan sii guda galno statement markii statement caadi uu yahay waxaa waaye I shall come to you tomorrow. I shall come to you tomorrow. waxaan ku iman doonaa berito. I waa subjectii iska taqaaniin will shall waa verb to be come waa verbkii caadiga ahaa to waa preposition you-na waa objectii. Okay, ama I shall come to you tomorrow waxaan ku imaan doonaa berito. You waa object you tomorrow ku dar aydan sidoo kale to labadan object ay noqonayaan. Okay, he will go to school. Schoolka ayuu aadi doonaa asaga weli maan aadin laakiin waa future waa aadi doonaa kaliya allah waa aadi doonaa. He will go waa aadi doonaa to school schoolka asaga. He-da waa subjectii will waa verb to be go waa verbkii caadiga ahaa to a preposition school or object. And she will cook the dinner. She will cook way kari doontaa ayada the dinner cashada. markii laga dhigayo question aragno markii laga dhigayo question waxay noqon doontaa sida tan shall I come to you tomorrow. bari ma ku imaan doonaa bari ma ku imaanaa yani shall I come to you tomorrow bari ma ku imaanaa. And will he go to school. schoolka ma aadi doonaa asaga. will he go to school schoolka ma aadi doonaa asaga. will she cook the dinner. will she cook ma karin doontaa ayada the dinner cashada. will she cook the dinner cashada ma karin doontaa ayada. marka will iyo shall xogaa ay idinka taabto wax yar will iyo shall waxaa loo isticmaalaa mostly wax aanan la hubin. tusaale ahaan I shall come to you tomorrow beri waa ku iman doonaa lama hubo beri inaad qofkaas aadi doonto in kala shakiya ku jiro yani. laakiin will marka la isticmaalayo waxaa loo isticmaalaa wax oo yani for sure ah ee la hubo. tusaale ahaan I will come to you tomorrow beri waa ku iman doonaa ballan yani qofkaas beri inaad tagtida waaye macnaha tomorrow inaad qofkaas beri inaad tagtid waaye maadaama ballan aa qaade. will marka waxaa loo isticmaalaa mostly ballan wax oo aan ma gamin kartid macnaha iskiin ma samayn kartid waa wax la hubo. laakiin shall waa shakiya ku jiro inaad beri oo tagi doonto in kale inaad ka mashquuli doontid allahu aclam. Okay, marka arag marka laga dhigayo marka laga dhigayo negative marka laga dhigayo waxaa waaye I shall not clear lagu soo daraa kaliya waxa laga hormarsiinaa diga. Okay, I shall not come to you tomorrow beri aniga kuma iman doono. He will not go to school schoolka asaga ma aadi doono. She will not cook she ayada will not cook ma karin doonto the dinner cashada. Okay, I hope tense waa iska fudud yahay kan aad u fudud very easy. I hope in la fahmay insha Allah. hana ilowin fadlan 10ka hadaad ka heshay inaad subscribe garayso channelka si aad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.